بسم الله الرحمن الرحيم ومالين أربعاها كوبية تومانكا بيشا جون سنة كلا بكون لباتن يشان أو كوبيغان شان يتومانكا بيشا دول حجة سنة كون أفر بقول فرتن يلح تاريخ الهجرية كسو روادا مركله يا برامجكي ورركا مانتا qodobada aan idinku haynana waxa kamid ah Israa'iil maanta waxa ka taagan xaalad culus iyadoo baarlamaanku cod uu qaadayo in la kala diro xildhibaanada taasi oo horseedi doonta in xukuumadda Netanyahu afka ciidda ay darto arrimahaasi waxa ugu wacan khilaaf siyaasadeed oo ruuxay Israa'iil dagaalka Gaza oo daba dheeraaday isla markaasna sababay in 20 bilood oo ciidanku ay wadeen duqeyn aan kala sooc iyo kala joogsi lahayn aysan gaarin wax guula tii ay sii dheer tahay Israa'iil oo sumcad ahaan duntay dunidan go'doon ka noqotay isla markaasna gashay in hangool la iskaga fogeeyo dhanka ciidanka waxa kordhaya qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca qaar baa cudurro ku dhaceen oo waashay kuwa kale iyagiiba isdilaya in kale waxay ka cabanayaan daal iyo rafaad haysta halka kuwa kale dagaalka ay ka soo horjeesteen haddaba xubinta falaaqaynta ee qaybta dambe ee barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa warbixin xasaasi ah oo la yaab leh oo gudaha Israa'iil ka dhalisay hadal hayn badan oo uu qoray mid kamid ah wargeysada ka soo baxay Israa'iil wararka kalena waxa kamid ah waa Iran oo si cad u sheegtay in ay duqeyn doonto dhammaan saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe haddii la soo weeraro ruushkana waxa uu soo jeediyay arrin uu ku dhexaadinayo Mareykanka iyo Iran oo luqunta iskula jira wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan barnaamijka idinkugu haynaa Israa'iil oo wali xabsi ku haysa 8 kamid ah dhaqaaqayaashii saarnaa doonidii ku socotay Gaza oo ay ka qafaalatay biyaha caalamiga Faransiiska oo la sheegay in uu wali hubo doofinayo Israa'iil inkastoo ay socdaan baaqiyo lagu dalbanayo in la joojiyo hubka loo dirayo Israa'iil rabshadihii ka socday magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka ayaa xoogaystay iyadoo bandow magaalada lagu soo rogay Trumpna wuxuu si cad u sheegay in magaaladaasi ay u baahan tahay xoreyn oo ay qabsadeen waxa ugu yeeray cadow shisheeye dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warar ee soo kordhay inta hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta American International High School iyo faraca Nairobi haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta kamaal American International High School American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaareynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waxaana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka maxamed cabdiraxmaan sheekh oo barnaamijka la daadihinaya ayaa inoogu bilaabaya wararka caalamka kuwooda safka hore ku jira maxamed mahadsanid mawlid maanta waxaan ku bilaabaynaa xiisadda Iran iyo Mareykanka iyada oo xaaladdu u muuqato mid ka sii daraysa isla markaasina hanjabaadyo culus ay xalay ka soo yeereen taliyaha taliska dhexe ciidamada Mareykanka ee loo yaqaan CENTCOM iyadoo Iran si cad ay ugu hanjabtay inay beegsan doonto saldhigyada ciidamada Mareykanka ee ku yaala bariga dhexe haddii wada hadallada socday ee ku saabsan heshiiska nuclearka ay guuldareystaan oo dagaal qarxo hanjabaadan ayaa waxaa jeediyay wasiirka difaaca Iran Aziz Nazaradeh waxaana uu yiri dagaalku ma ahan doorashadeena laakiin haddii wada hadalladu guuldareystaan oo nala soo weeraro dhammaan saldhigyada Mareykanka ee gobolka waa inoo bartilmaameed si geesinimo leh ayaan u beegsan doonaa dalalka ay ku yaalaan wasiirka gaashaandhigga ee Iran waxa kale oo shaaca ka qaaday in Iran dhawaan ay tijaabisay gantaal awood u leh inuu qaado madaxyada qaraxaya miisaankooda oo culus yahay oo u dhan yahay ilaa iyo 2 tan taasi oo muujinaysa sida Tehran ay uga go'an tahay in ay sii wado barnaamijkeeda gantaalada inkastoo cadaadis caalami ah lagu hayo Aziz Nasir Zadeh ayaa waxa uu yiri awoodaha difaaceenu
wax gorgortan ah kama gelayno hanjabaadahan ah in la weerarayo saldhigyada Mareykanka ee dalalka gobolka sida Ciraaq, Bahrain, Kuwait, Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u korinaysa qatarta wadahadalada iyo xasiloonida gobolka dagaal kasta oo dhacana wuxuu sababi karaa baa la yiri isbalaarin military oo ay ku lug yeeshaan dalal badan taasi oo keeni karta cawaaqib xumo aad u baahan Mareykanku weli si rasmi ah ugama jawaabin hanjabaada Naasir Sadex balse waxay falanqayaashu ka digeen in hadalladan ay si adkeyn karaan dadaalada dhanka diblomaasiyadda ee lagu doonayo in lagu hortago qalalaas cusub oo ka dhaca gobolka Bariga Dhexe. war kale oo la xiriira arrimahan Ruushka ayaa diyaar u ah in uu diyaar u yahay in Iiraan uu ka qaado walxaha nukleerka ee ka badan intii lagu heshiiyay uuna geeyo dalkiisa si uu uga caawiyo Mareykanka iyo Iiraan in ay gaaraan heshiis sida uu maanta uu sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Ryabkov oo ay soo xigatay wakaalada wararka ee RIA Novosti ee laga leeyahay Ruushka ma jirto war rasmi oo ka soo baxay Iiraan oo jawaab u ah hadalkan oo ka soo yeeray Ruushka iyadoo oo xildhibaanada Iiraan ay u arkaan wada hadallada kuwa Mareykanka iyo Israa'iil ay ku doonayaan in ay Iiraan uga dhigaan dabin istiraatiiji ah ee Mareykanka gabi ahaanba dhab kama ahan wada hadallada ujeedada wada hadalladu waxa uu ka dhigtay in uu ku qasbo Iiraan dalabkiisa waxaana uu qaatay mowqifkiisa gardarro oo ah in si buuxda uu uga soo horjeesto xuquuqda aan la dhaafi karnin ee shacabka Iiraan ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen xildhibaanada Iiraan. waa tahay markana aynu eegno xagga waddankaasi Mareykanka halkaasi oo rabshadaha ka aloosan magaalada Los Angeles ay ka sii darayaan duqa magaaladaasi Karine Bass ayaa ku dhawaaqday bandow habeenkii xalay ah oo ka dhaqan galay magaaladaasi gaar ahaan bartamaha kadib rabshado ka dhashay hawlgallo ay sameeyeen ciidamada socdaalka federaalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna ku andacooday in uu doonayo in uu magaalada xoreeyo isagoo ku andacooday in ay la wareegeen magaalada wasi hadalka u dhigay cadow ajnabi ah oo nacab dalka Karine Bass ayaa sheegtay in bandowga uu bilaaban doono maalin kasta laga bilaabo 8 fiidnimo ilaa iyo 6 aroorinimo iyadoo xaaladuna ay gaar noqonayso dadka deegaanka iyo kuwa shaqo tagaya ayaa loo ogolaanaya dhaqdhaqaaq waxay soo kala sheegtay in bandowga uu socon doono dhowr maalmood lagana fiirsan doono sii wadidiisa iyadoo lagu salaynayo xaaladda ammaanka ee magaalada Karin waxay intaasi ay ku dartay in rabshadihii ugu dambeeyay 29 dukaan la bilaqaystay taasi oo ah dhacdooyin aan horey loogu arag magaalada tan iyo markii ay bilowdeen hawlgallada amni ee laamaha socdaalku ay wadaan war goor dhaweeta ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxaa lagu sheegay in booliiska Los Angeles ay xireen dad badan kadib markii mudaharaadayaal ay diideen inay u hoggaansamaan amarka bandowga madaxweyne Trump ayaa difaacay go'aankiisa oo ciidanka ilaalada qaranka ugu diray gobolka California isagoo sheegay in meel kamida magaalada ay xaaladdu noqotay mucaaradnimo ka dhana dawladda Trump waxa uu ku hanjabay in magaalada la gubi lahaa haddii uusan ciidamo dirin isagoo oo ballan qaaday in uu si degdeg ah u xoreynayo magaalada Trump oo ka hadlayay saldhigga military ee Fort Bragg ee North Carolina ayaa yiri waa weerar toos ah oo lagu hayo nabadda kala dambeynta iyo madax bannaanida qaranka waxaana dad wata calamo shisheeye kuwaasi oo doonaya in ay sii wadaan duulaanka ay ku hayaan dalkeena docda kale warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in garsoore heer federaal ah uu diiday codsi uu soo gudbiyay gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom kaasi oo doonaya in si degdeg ah loo joojiyo ciidanka Trump uu diray magaalada Los Angeles xeeraryaha guud ee California ayaa sheegay in gobolka uu gudbiyay 25 dacwadood oo ka dhan ah madaxweyne Trump kuwaasi oo lagu eedeeyay in uu jabiyay qaanuunka iyo dastuurka Mareykanka dacwada ugu weyn ayaa lagu sheegay in Trump si qaanuunka ka baxsan uu ugu diray ciidamo gobolka isagoo aan helin codsi rasmi ah oo ka yimid gudoomiyaha gobolkaasi telefishinka CNN ayaa soo xigtay xeeraleeyaha California isaga oo sheegay in amarka Trump bixiyay uu jabinayo doorka uu gudoomiyaha gobolka uu ku leeyahay hogaaminta ciidanka ilaalada qaranka ee gobolka isaga oo qorsheynaya inuu maxkamadda ka codsado xayiraad degdeg ah si dacwadda si dhaqso leh loogu xalliyo maadaama tallaabada madaxweynaha ay sababtay dhaawac aan la sixi karinin banaanbaxyada ayaa ka bilaabmay magaalada Los
Los Angeles kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada ilaalada qaranka ee socdaalka iyo xuduudaha kuwaasi oo lagu bartilmaameedsaday dadka muhaajiriinta ah ee sharci darrada ah. La taliyaha Trump Stephen Miller ayaa mudaharaadyada ku tilmaamay waa si hadalku u dhigay kacdoon ka dhan ah dowladnimada Mareykanka. Banaanbaxyada mararka qaar waxay isku bedeleen rabshado iyadoo la arkayay iskoorimaadyo dhex maraya dadka mudaharaadaya iyo ciidamada ammaanka, waxaana dowladda federaalka ay u dirtay magaalada ciidanka ilaalada qaranka si loo xakameeyo xaaladda. waa hagaag daawadayaal waxaa inagu soo fool leh wararkii ugu dambeeyay ee qasa Israa'iil oo maanta xaalad adag ay ka taagan tahay iyadoo oo xukuumadda Netanyahu ay liiqliiqanayso xubintii falanqaynta iyo qodobo kale, balse marka hore aynu eegno jawiga cimilada qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaalida. magaalada Muqdisho ayaan ku hormari doonaa. jawiga cimiladu waa 30 digrii centigrade, jawiga waa qorrax, waraha dabayshuna waa 29 kilomitir saacadii. jigjiga waa 26 digrii centigrade, jawiga waa qorrax, waa qayb qorrax leedahay, mid qayb qorrax leedahay, xawaraha dabayshuna waa 25 kilomitir saacadii. Hargeysa waa 31 digrii centigrade, jawiga waa qorrax daran, xawaraha dabayshuna waa 32 kilomitir saacadii. Djibouti waa 34 digrii centigrade, jawiga waa mid qayb qorrax leedahay, xawaraha dabayshuna waa 15 kilomitir saacadii. Garissa waa 29 digrii centigrade, jawiga waa daruuro, xawaraha dabayshuna waa 56 kilomitir saacadii. Baydhaba waa 28 digrii centigrade, jawiga waa qorrax iyo daruuro, xawaraha dabayshuna waa 56 kilomitir saacadii. Boosaaso waa 38 digrii centigrade, jawiga waa qorrax daran, xawaraha dabayshuna waa 21 kilomitir saacadii. intayna gudbin qodobada kale aynu ka hakano qadar xaysiis. المركز الفرقان waxaad ugu imaanaysaa barashada iyo xifdinta quraanka kariimka oo hab online ah aad ku dhiganaysid isla markaana ay diyaar kugu yihiin macallimiin ku xeel dheer xifdisiinta ilmaha ee quraanka kariimka. waa adiga oo gurigaaga jooga ilmaha iyo adiguba ku barta quraanka kariimka habka casriga ah ee online-ka. waa fursad qaali ah oo marle araga oo gurigaaga kugu timid. fadlan ubadkaaga u door macallin wanaagsan oo takhasuskiisu yahay quraanka kariimka iyo barashada shariicada islaamka. sidoo kale waxaad ka helaysaa barashada axaadiista, tafsiirka, luqadda carabiga iyo ducooyinka. almarkas alfurqaan kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal, si aad ula socoto wararkeena iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino. haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn ku soo biir. waxaadna daawanaysaan barnaamijkii wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaasheenna koowaad iyo labaad. waa tahay xagga Gaza aynu eegno iyadoo lagu soo waramayo in duqeyn Israa'iil ay wado ayaa sidoo kale xogaga iska caabinta Falastiiniinta waxaa la sheegayaa in howlgallo culus ay qaadeen saacadihii la soo dhaafay. howlgalladaasi waxa ugu dambeeyay mid ka dhacay Khan Yunis. haddaba aynu eegno warbixin telefishinka Al Jazeera goordhawta uu baahiyey waxa uu ka soo xigtay dagaalyahanada Saraaya al-Qudus garabka hubaysan ee ururka Jihaadul Islaami in ay burburiyeen gaarihii ciidanka Israa'iil ay leeyihiin kadib markii ay meel dhulka uga aaseen. howlgalkaasi oo ay ka fuliyeen deegaanka Qizaan al-Najjar oo maalmihii ugu dambeeyay ciidanka Israa'iil aad loogu beegsanayo. deegaankaasi wuxuu dhacaa Khan Yunis oo ku taala dhanka koonfureed ee Jidda Gaza. wararka sidoo kale cisbitaalada Mareykanka Gaza ka imaanaya waxay sheegayaan in 42 qof tan iyo saakin lagu dilay duqeymo iyo rasaas ay fureen ciidanka Israa'iil. 30 ka mid ah dadkaasi waxa lagu dilay aagga Naajirin iyagoo sugayay gargaarka ay qaybinayso hay'adda Mareykanka laga leeyahay ee la isku khilaafsan yahay shaqadeeda. waxaana soo baxaya dad kale oo fara badan in ciidanka Israa'iil rasaas ay ku fureen ay ku dhaawacmeen. wararka Israa'iil inta ka bixin 8 ka mid ah 12kii dhaqaaqayaasha arrimaha Falastiiniyiinta ee saarnaa doonidii Madlin ee Israa'iil ay ka qafaalatay biyaha caalamiga ayaa weli lagu hayaa xabsi. haddaba warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa in arrintan ay xaqiijisay hay'adda xuquuqda madaniga ah ee lagu magacaabo Adalah oo matalaysay dhaqaaqayaashan. hay'addan oo ku diiwaan gashan gudaha Israa'iil xalay fiidkii maxkamadda dib u eegista xabsiyada ayaa eegtay go'aanada maamulka kontroolka xuduudaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Israa'iil, waxaana ay ansixisay amarada lagu sii haynayo 8 mutadawiciinta caalamiga ee saarnaa doonida Madlin ilaa inta laga masaafurinayo. qareenada Adalah ayaa waxay ka doodeen maxkamadda in qaanuunka lagu haysto dhaqaaqayaasha uu yahay mid sharciga ka baxsan, gaar ahaan qodobka ah soo gelid sharci darro gudaha Israa'iil isla markaasna aanu qusaynin kooxdii lagu qabtay doonida Madlin maadaama ay isku dayinin
maadaama aysan isku dayin inay soo galaan gudaha Israa'iil oo ay marayeen biyaha caalamiga ah. hay-addu waxay sheegtay in doonta Madlin ay ku socotay biyaha caalamiga ah iyada oo damacsanayd in ay si toos ah u gasho biyaha gudaha ee si caalami ah loo aqoonsan yahay ee dowladda Falastiin gaar ahaan Gaza, balse markaasi ay qabteen ciidamada badda ee Israa'iil oo ay u jiideen dekedda Ashdod. maxkamaddu waxa ay diiday doodaha adalah iyada oo sheegtay in xayiraadda badda ee Gaza ay sharci tahay marka loo eego qaanunka Israa'iil, isla markaasina dhaqdhaqaaqayaashu ay si ulakac ah iskugu dayeen inay jebiyaan xanibaadda. qareen ka tirsan adalah ayaa sheegay in la filayo in dhaqdhaqaaqayaasha si dhaqso leh loo musaafiriyo. shakhsiyaadkaasi lagu hayo xabsiga Gifon ee Ramle waxaa ka mid ah Rima Hassan oo u dhalatay Faransiiska kana tirsan baarlamaanka Yurub, Suwaib Ordu oo u dhashay dalka Turkiga, Mark Van Rennes oo ka soo jeeda waddanka Holland, Pascal Moreres iyo Riva Varard iyo Yonis Mahmadi oo iyaguna Faransiis ah, Thiago Avila oo ka soo jeeda dalkaasi Brazil iyo Yasmin Akar oo iyana ka soo jeeda waddanka Jarmalka. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil kama aysan jawaabin su'aalaha ku saabsan goorta la masaafurinayo dhaqdhaqaaqayaasha. afar ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha ay ku jirto gabadha arrimaha Falastiiniinta oo ololeysay u dhalatay waddanka Sweden, Greta Thunberg, ayaa shalay laga masaafuriyay Israa'iil kadib markii ay ka tanaasuleen xaqooda ah in maxkamad loo horkeeno. waxaana la sheegayaa in ay gaareen wadamadii ay u dhasheen. waa hagaag war kale oo la xiriirana dagaalka Gaza, inkastoo ay socdaan banaanbaxyo iyo dalabyo ku aadan in la joojiyo hubka dalalka Yurub ay u dhoofiyaan Israa'iil, ayaa warbixin cusub oo soo baxday waxa ay sheegaysaa in Faransiisku uu weli hub u dirayo Israa'iil. warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa soo jeedinaya waryahayaga Cabdifataax Mawlid Xaaji Cabdi. 10 hay-adood oo aan dowli ahayn oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqa Faransiiska ee jooji hubaynta Israa'iil iyo dhaqdhaqaaqa ka hortagga maalgelinta iyo cunqabataynta ee loo yaqaan BDS ayaa shaaciyay in Faransiisku uu si joogto ah hub ugu dirayay Israa'iil tan iyo bilowgii dagaalka lagu sifeeyay xasuuqa ka socda Gaza. ururadan ayaa daabacay warbixin ku saabsan dirista hubka ee loo gudbiyay Israa'iil taasoo ku salaysan xog laga helay waaxda canshuuraha Israa'iil. sida lagu sheegay warbixinta qalabka military ee Faransiiska u dhoofiyay Israa'iil ayaa waxaa ka mid ah bambooyin, gantaalo, rasaas, gantaal ridayaal, madaafiic iyo qalab kale oo isugu jira agab ciidan. warbixintu waxay sheegtay in ka badan 15 milyan oo walxo hub ah oo nooca class 2 ah iyo 1868 oo ah class 2 la geeyay Israa'iil. qiimaha hubkan ayaa dhaafay 9 milyan oo euro iyadoo la adkeeyay baahida loo qabo baaritaano dheeraad ah si loo ogaado meesha ugu dambaysa ee loo adeegsanayo hubkan. waxaa sidoo kale la xusay in qalabkan laga yaabo in loo diray inay adeegsadaan ciidan kale oo dowladeed, isla markaana laysanka dirista hubkan ay tahay in lala wadaago dadweynaha si loo xaqiijiyo suurtagalnimadaas. warbixintu waxay intaa ku dartay in xogta la helay ay muujinaysa in dirista hubka ee labada dhinac ay weli socoto, waxaana sidoo kale la xaqiijiyay in Mareykanku uu qayb ka mid ah diyaaradaha dagaalka F-35 ugu diray Israa'iil garoonka diyaaradaha ee Charles de Gaulle ee magaalada Paris. toddobaadkii hore shaqaalaha dekedda Marseille Fosse ee gobolka koonfureed ee Faransiiska ayaa diiday inay ku raraan hub markab ku wajahnaa Israa'iil. Cabdifataax Mawlid Xaaji Cabdi, HBN Online TV. وهجاج عبد الفتاح وعد محسنتها انت عن أجدبين وركها برلمان كإسرائيل مع أنت حالة كتاجن أين أجن ورد دقدقة أو هذا الصعبعي. وهجاج انت إنه برنامج كتشرني ورد دقدقة أو هذا الصعبعي أيوحها الشيء يعني إن دجال هندا سرايا القدس أي كل واقعين دجال علوس أو خان يونس أي كل جلان عين كإسرائيل. waxaana ay sheegayaan in halkaasi ciidamo Israa'iiliin iyo gaadiid ay leeyihiin oo soo galay ay isku horimaadyo culus kula jiraan. goor sii horeysay oo daqiiqada ka hor ah warbaahinta Israa'iil ayaa waxay xaqiijisay mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa in uu ku dhex marayo ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada iska caabinta Falastiiniyiinta ee Khan Yunis. warkan intaynu barnaamijka ku jirnay ayuu soo dhacay. haddii ay wax ku soo kordhaana barnaamijyadeena dambe ama intaynu barnaamijka ku jirno ayaan idin soo gudbin doonaa haddii alla idmo. وهجاج حق إسرائيل أين أجنه ما أنت وكلا بح يا لليه إن كستون نتنياهو مرض الروح يقوليه دبها الله لجو عد بحنتها الله وضع لجو وضع جرد وإنه يكرد على الأقل ككنيسة كبرلمان كإسرائيل. وعن الشيء يا حل باند إن يقعد هنا يعني إن برلمان كلا ديره
taasi oo horseedi karta markaa doorasho degdeg ah in la qabto haddaba warbixinada ugu dambeeya ee soo dhacaya waxa ay sheegayaan in Netanyahu wadahadallo uu la leeyahay xisbiyada mayalka adag isagoo doonaya in si degdeg ah lagu joojiyo codaynta laakiin xisbiyada mucaaradka waxa la sheegayaa in shir ay yeesheen saacado ka hor ay isku raaceen in la qaado codaynta baarlamaanka waxaana soo baxaya walaac weyn oo arrintan ay ka qabaan xubnaha ka mid ah golaha wasiirada ee Netanyahu wasiirka maaliyadda midigta fog Bezalel Smotrich ayaa ka digay ridista xukuumadda xilligan oo dagaal lagu jiro Israa'iil waxaana uu sheegay taas inay halis gelin karto jiritaanka Israa'iil waxaana markaasi uu sheegaya in loo baahan yahay in laga laabto go'aanka lagu kala dirayo aqalka kaniisadka ee baarlamaanka Israa'iil taariikhdu marnaba nama cafin doonto ayuu yiri mana cafin doonto cid kasta oo Israa'iil u jeeda doorasho xilli dagaal lagu jiro taasi oo keeni karta buu yiri guuldarro dagaalka ah Smotrich oo hogaamiye xisbi diimeed oo Sahyuuniya ayaa waxa uu yiri waxaan u baahannahay walaalaheena Yuhuudda xag jirka ah ama waxa loo yaqaan ultra orthodoxka in ay qayb ka noqdaan waajibaadka weyn ee adeega militariga waa waajib weyn oo baahi iminka jirta loo qabo qaran ahaan iyo amni ahaan isagoo xusay in tan lagu gaari karo wasidalka u dhigay in la ilaaliyo xukuumadda in doorasho la aado waxa uu ku tilmaamay inay tahay halis jiritaanka Israa'iil ku wajahan mustaqbalkeeda isla markaasna ay tahay mas'uuliyad darro qaran oo aad u xun arrintan ayaa waxa loo fasirtay inay tahay inuu fahamsan yahay xaaladdu inay jiq ku tahay xukuumadda Netanyahu oo ay liiqliiqanayso markaan ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Olmert ayaa si adag u dhaliilay dagaalka Israa'iil ku hayso Gaza sida uu ku sheegay waraysi uu siiyay wargeyska New York Times Olmert ayaa sheegay in mowqifka Israa'iil uu yahay in dagaalku uu socdo iyada oo aanu lahaynin yoolal cadaaladaysan waxa uu sheegay in dagaalka Gaza uu halis gelin karo nolosha la haystayaasha isla markaasina uu yahay dagaal shakhsi ah oo lagu talagalay badbaadinta siyaasadeed ee Netanyahu Olmert waxa uu si weyn u dhaliilay siyaasadaha xukuumadda Israa'iil isaga oo sheegay in Israa'iil ay xanibtay gelitaanka gargaarka loogu talagalay dadka Gaza oo gaajaysan taasina ay si cad ay u tahay siyaasadda xukuumadda waxa uu sidoo kale u xusay damacyada wasiirka midigta fog isaga oo sheegay in Ben Gvir iyo Smotrich ay rabaan in ay meesha ay ka saaraan dadka Gaza kadibna dadka daanta galbeed si ay dhulkooda ugu daraan Israa'iil وهجاج هاتن waxaynu soo gaarnay xubintii falaqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano macluumaadka ay bixiyaan qobarada dhanka militariga dhanka istiraatiijiyadda ciidanka arrimaha diblomaasiyadda siyaasadda iyo waliba sirdoonka sidoo kale xubintan waxaynu ku gorfaynaa waxyaabaha waaweyn ee warbaahinta caalamku ay qorto xubintan maanta waxaynu ku eegaynaa xaaladda jahwareerka daalka niyad xumada iyo walaaca leh ee ay ku sugan yihiin ciidanka Israa'iil warbixintan waxaa si gaar ah loogu eegayaa askar ka tirsan ciidamada Israa'iil oo marayka Gaza ku sugan kuwaasi oo ka hadlaya xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin warbixintan waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Nimca Cabdikariin Timacade wargeyska hay'adda saxranood ee Israa'iil ka soo baxay ayaa daabacay warbixin lagu muujiyay marag fur cusub oo laga qaaday askar Israa'iiliyiin ah oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka kuwaasi oo muujiyay xaaladda jireed iyo midda maskaxeed ee ay la daaladhacayaan kadib 20 bilood oo duqeyn iyo weeraro joogto ah ay ku hayeen marinka Gaza xaqiiqooyinkan oo uu soo aruuriyay wariyaha amniga iyo ciidanka ee wargeyska Galganood ayaa lagu soo xigtay 4 askari oo magacooda rasmiga ah la qariyay isla markaana adeegsanaya magacyo kale kuwaasi oo sawir madow ka bixinaya xaaladda dhabta ah ee ciidamada Israa'iil xaaladahan ka sii daraya ee la soo gudboonaaday askarta kadib dagaalka ayaa noqday cudur aamusan waxana ay ka mid ah daal jireed iyo mid maskaxeed waxayna taasi noqotay dilaaga dhabta ah kana qatarsan rasaasta halka askarta isdilaysa ama nafta iska qaadaysana ay noqotay arrin caadi ah riyooyin naxdin leh iyo daal jireed shahar oo ah askari 22 jir ah kana tirsan cutubka lugta ayaa sheegay in bilowgii dagaalka uu diyaar u ahaa inuu wax waliba u huro xitaa inuu ka tago xafladda arooska gabadha kaliya ee la dhalatay laakiin 2 bilood kadib oo uu joogay Gaza waxa uu sheegay inuu meel kasta ku arko meyd waxa uu hadalkiisa ku daray maanta markay nagu amreen ku noqda Gaza jirkayagu wuu gariiray faraha iyagu mararka qaar waxba ma qaadi karaan tabar darid darteed dhaqaatiir
dhaqaatiirtu waxay ku tilmaameen xaaladahaasi calaamado maskaxeed hogaamiyaasha ciidankuna waxa ay leeyihiin wax weyn ma ahan ee waa wax fudud inkasta oo askariga caadiga ah ee Israa'iil uu filayo in lagu daro ciidamada kaydka isla markaana uu dhameeyo adeega ciidanka haddana shahar ma hubo intaasi ay dhacayso waxaana uu yiri waan daalanahay waxaan dhameyn doonaa adeega ciidanka 4 bilood gudahood kadibna uu arki doonaa waxa dhaca askariga oo hadalkiisa sii wataya waxa uu yiri waxaan u halgamaynaa si aan u badbaadno ee ma aha si aan u guuleysano waana qalbi jabay نيوم oo ah 22 jir kana tirsan askarta Israa'iil ee duulaanka ah ayaa cabiray dhankiisa horaantii dagaalka waxa ay ka filayeen iyo sida xaaladda rajadu ay isugu bedeshay mid ka adag filashadoodii isaga oo yiri bilowgii dagaalka dhammaan askartu waxay lahaayeen niyad wanaagsan qof waliba waxa uu rabay inuu qasagalo laakiin markaan gaarnay bishii Janaayo ee sanadkii hore hawlgalladii waxa ay ugu wareegeen difaac waxaan dareennay inaan sugayno waxa dhici doona oo uu la jeedo weerarka xiga ee ku soo maqan halka ay dagaalami lahaayeen waxa uu intaasi ku daray bilowgii waxay nagu yiraahdeen waxaad xoreynaysaan dhulka maanta waxay nagu leeyihiin rasaasta ilaashada oo dhaqaalaysta waxa nagu dhacay dareen ah inaan nahay tirooyin oo kaliya nolosheenuna ay qiimo yar leedahay waxaan horeynaa naftayada iyo noloshayada marka aad soo ogtahay waxa aad heli doonto oo dagaalku uusan lahayn ujeedo cad oo ciidan balse uu yahay mid siyaasadeed dhiiranaantu waa ay luntaa waxa uu intaasi sii raaciyay waxaan isdareensiinaynaa inaan nahay hilib hubaysan mar uu ka hadlayay dhibaatada maskaxeed ee askartu wajahaan waxa uu yiri habeenkii ayaa inoogu daran waxaana dhacda wax qofna uusan xamili karin isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu yiri waxaan ku toosnaa jugta qaraxyo aan jirin yacni uu ku soo salalayaa isagoo oo qarab ku jira isagoo sii hadlayay ayuu yiri saaxiibaday waa ay ugu qoslaan oo waxay yiraahdaan waa xaalad ciidanka ka dhex jirta iyo riyooyin ay ku arkayaan qaraxyo iyaga oo hurda laakiin waan ognahay in dhammaanteen aan ku sugannahay xaalad niyad jab ah geesta kalena Caamir oo ah 23 jir ahna taliye taangi ayaa ku andacooday in isbuuc ka hor laba taangi oo kamid ah kuwa ciidanka ay diideen amarkii lagu faray inay hore u socdaan waxayna askartii saarnay taangiyadaasi yiraahdeen waan daalnay waana isdilitani yacni haddii ay ku sii socdaan dagaalka halkii laga dhageysan lahaa cabashadooda waa la xiray waxa uu tilmaamay in mid kamid ah askarta oo darawal ah inta hurdooday daal dartiisa uu gaarigiisii jiirsiiyay askari kale dhacdadaas waxaa lagu sheegay qarax laakiin runta annaga ayaa og daalka badan ee aan dareemayno ayaa na dilaya inta aan cadowga la gaarin isdilkooda iyo niyadjabka joogtada ah dagaalyahan Ben oo 24 jir ah kana tirsan cutubka qaaska ah ee Sayareed Matqal ayaa sharaxay in ciidamada kaydka ay tahay in ay hal bil oo kaliya dagaalka ay ka qayb galaan kadibna ay ugu laabtaan dib qoysaskooda isaga oo tilmaamay in kuwa joogtada ah ama askarta rigliga ah ay noloshoodu tahay mid isbedeshay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 waxa uu xusay hadal saaxiibkiis uu ku yiri ka hor fasax gaaban oo uu aaday waxana uu yiri waxaan ka baqay inaan sariirtayda ku seexdo maxaa yeelay waxaan ka cabsi qabaa inaan toosin daal aawadi waxana uu sii raaciyay marka ciidamada kaydka ay dib u soo noqdaan waxay ka sheekeeyaan xaasaskooda iyo caruurtooda annaga waxaan ku dadaalaynaa inaan xusuusano sida nolosheeni rayadka ah ay ahayd Ben waxa uu sheegay waa sida uu hadalka u dhigay in ay og yihiin in qaar kamid ah ciidamada kaydka ay isdileen oo nafta isdhaafiyeen taasina waa wax iyaga ku soo socda waxa uu eedeeyay xukuumadda iyo bulshada Israa'iil isagoo oo leh waxay moodayaan in askartu tahay mashiino oo kale balse waxaan nahay dad nool oo dareenkoodu ku dhow yahay inuu dhinto ugu dambeyntii wariyaha Israa'iiliga ah waxa uu sheegay in hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Israa'iil ay bilaabeen inay qeeladaan ka bixiyaan arrintan Ahmed Guelaf oo ka tirsan ururka hooyooyinka jiidda hore oo loola jeedo hooyooyinka dhala askarta dagaalka ku jira ayaa tiri hooyooyin badan oo dhalay wiilal kamid ah ciidanka joogtada ah ayaa si degdeg ah nagu soo wacay waxayna sheegeen in wiilashoodu ay yihiin kuwa daalay oo aad u rafaadsan kuna sugan xaalado khatar badan waxa ay xustay in ciidamada kaydka ah ay helaan fasaxyo laakiin kuwa joogtada ah ay ku jiraan dagaalka taasi oo keentay hoos u dhaca howlahooda joogtada ah feejignaan la'aan iyo calaamado maskaxeed kuwaasi oo aan ka hari doonin noloshooda nimcati macade HBN Online TV waa tahay nimca way mahadsan tahay intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wararka maantay oo halkan aan si wada jir idinkaga soo tabinayna anigoo Maxamed Cabdiraxmaan iyo Mawlid Xaaji si aad u hesho wararka iyo barnaamijyadeena haddii aad ku cusub tahay ama aadan hore ugu xirnayn baraheena bulshada ku soo biir waana inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo
xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound. waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcadaa ah kana soo shaqaynayay hawlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano kuna takhasusay xanuunada wadnaha, caloosha iyo dheefshiidka, kilyaha, sambabada iyo lafa xanuunka. Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta. sidoo kale xarunta waxaa ka howlgala dhakhaatiir isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo takhasusyo kala duwan leh. waxaa intaa dheer inaad xarunta ka heli karto adeegyo kale oo caafimaad oo ay ka mid yihiin daaweynta jirdhiska, physiotherapy, daaweynta cudurrada maskaxda iyo dareenka sida walwalka, murugada, waswaaska iyo trauma. xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London, xaafadda caanka ah ee Shepherd Bush. wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda. adreeska xaruntu waa 108 Goldhawk Road, London W12 8HD. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com.